فعل تمام قبيل قارانك أورياء قبيل هضلان قبيل فريستا قبيل كشكيا قبيل فعل تمام قبيل اسكو جعل هذا قبيلة اسكو درا قبيل صلاة ودقينا محادمية ودقينا محادمية رأي مدينة أيها صوب المسجد رسول كريم صلى الله عليه وسلم بلال يا سلمان وقد يبارك وعركون محل وقد باهين هيبون هدي طولي هذا الغبال الذي يسوق نكن محمد يولي نكن محمد قوم جيسيبوا هنا هدي طولي عرب أو قاعدين كون محل وقد باهين هدي طولي معاذ بن جبل بامغلي هذا الكاس هل كاسوا معانك يقبطي برقاسوا نبي قوم كيني برقاسوا معاذ ولي بأوشاقوا يريد نكن الصدايا صدابوا لرسول الله markaas nabiga wajigiisa badilmay manbarku nabigu fuulay dadkii oo dhan baa loo wada yeeray markaabuu nabigu dhigaysta abihiin wa aadam alayhi salaam hooyadiina waa hawa luqada arabiguna abi hooyayni ma abu rasuulku man takallama biha fa huwa arabiy ba nabigu ninka luqada arabiga bartay ku hadla waa arabi hadalka markuu nabigu yiri khudbadii buu joojiyay muaad bin jabal wali ninkii sidaa buu hayaa markaasuu yaa rasuul allah ninkan maxaa ka yeelnaa markaasuu nabigu yidhi dacun linnaar yaa mucaad ninkan naarta kaaga filana naarta u daabu rasuulku ka yidhi waa nin masjidkii nabiga jooga la soco wuxuu yidhi naartaa kaaga filane naarta u dhaaf maalintii nabigeenu adduunyada ka intiqaalay carabtii ridowday ee diinta ka noqotay ayuu ka mid ahaa isagoo murtadana ninkii waa la dilay baa la yidhi هذا النبي يا حقيقه ما دام هذا الروح كهلي ومضى من لماذا كلجينيا او عنصريه قبيله ابوريا هذا الكابو كم متيستني كاسر النار قدبيني امضا وامضرا ويا وامضرا الهي بدر ومضر بعد علق الدين ده marka u deynay in culimada umma diinta ka masuula oo iyagu waxa sheegaan عمدي waxay ku dhaceen inay 24 saac qabiil u ficiltama qabiil qaaranka u uriya qabiil u hadlaan qabiil u fariista qabiil ka sheekeeya qabiil u ficiltama qabiil isku jeclaada qabiilada isku dirra qabiil u rursada wadagena maxadumi qabiil baa halka inay waxa dad badaha ku gurmay maanta bilowgii waxay ka bilaabatay waa qabiilada xasuuda نبتين سو غادو اساس كيغو قبيلد ويان وانا شيء كليه يهود اي فكرين يدادين اسلامنimada muslimiintu waxay ku bedeli karaan qabiilada ku bedeli karaan deena islaamnimada halkeega qabiil baa loo geliyay alla soo kala gogoy arab deena qoys maanta umada loo kala gogoynaya qoys inaan fikirna la inaga doonay walaalayaal oo murugo xaaladda maanta umada ku jirto waa xaalad laga murugo weeyaan